bismillah kusoo dhawow videogeena maanta oo aan ku baran doono sida loo isticmaalo Microsoft PowerPoint haddii aadan aqoon sida loo isticmaalo ama ay mar hore kugu dambeysay isticmaalkiisa insha Allah videogan waxaa kusoo qaadan doona qeybaha aasaaska ee lagama maarmaanka inaad taqaano sida u isticmaasho Microsoft PowerPoint videogan waxaa ku isticmaali doonaa Microsoft PowerPoint kii ugu dambeeyay oo ah 2021 waxaana ku isticmaali doonaa Mac haddii aad isticmaalayso Windows oo haysato Microsoft PowerPoint kuwii sanadihii hore 2016 2017 ilaa hadda waxyaabo badan ay isugu mid ka yihiin waxaan rajaynayaa in asxaabta la wadaagto si ay kan uga faa'iideystaan waa mahadsantihiin okay si aan u furo marka hore qaybta hoose ayaa dhigtay pin qaybtaas hoose home-ka ayuu ii joogaa markaa furo waxaa ii soo muuqanaya qaybtan dambe ee backstage-ka Microsoft PowerPoint qaybtan dambe ee backstage-ka wuxuu kugu soo ururiyey faylashii ugu dambeeyay la furay badhamo dhinaca bidix new recent share open qaybtan sarna waxaa ka aragnaa themes ama naqshado hore loo soo diyaariyo aad iyo aad u qurux badan haddii aad rabto inaad isticmaasho oo aadan waqti badan ku dhimin inaad mid cusub samayso meeshan sare ayaa ka helaysaa kuwan haddii aadan ku qancin more themes ayaa qaybtaas sare ee midigta taabanaysaa markaa furto waxaa kuu soo muuqanaya themeyaal kaloo aad u far badan haddii aadan kuwan kusii qancin waxaa fursad u leedahay qaybtan sare inaad ka raadiso waxaa rabto tusaale ahaan haddii arday tahay waxaa qoraysaa oo keliya school aad rabto inaad waxbarashadu isticmaasho meeshaas ay qoraysaa kadibna naqshada rabta ayaa qaadanaysaa kadib qoraalada ku yaal iyo sawirada ayaa wax ka bedelaysaa sidaasna waxaa ku haysataa PowerPoint oo aad iyo aad u tayo fiican leh haddana waqti gaaban ah ku samaystay okay hadda ma u baahni anaka waxaa rabnaa inaan kasoo bilowno bilowga oo aasaaska hoose sidaas darteed waxaa furaynaa blank presentation laba sib waa u furi karaa laba meer kelig waa ku siin karaa ama markaa doorto kadib calaamad huruud oo kale ayaa geesaha ka saaran hoos qaybtan hoos ayaa tagaya create ayaa taabanaya okay create markaa sidaas u furto Microsoft PowerPoint waxaa ku soo muuqanaya pagekan oo maaragtay lagu soo ururiyay badhamo far badan dhinaca bidixna waxaa lagu keenay slides hadda waxaa haysanaa kaliya hal slide pages ma la dhihi karo sababta pages waxaa isticmaalo Microsoft Word ayaa isticmaala laakiin Microsoft PowerPoint waxaa isticmaala slide okay qaybtan sare waxaa ugu jeednaa home tabs waa kuwan home tab insert tab draw design transition waa taabyo badan tab kastana waxaa kusii hoos jiro ribbon okay ribbonna aad u far badan ayaa kusii jiro ribbonkan gudihiisa waxaa kusii jiro groups hadda qaybtan waa group qaybtan waxay ku shaqo leedahay slide-ka iyo siduu egyahay qaybtan waxay ku shaqo leedahay fontiga qaybtan waxay ku saabsan tahay numbering iyo indent waxyaabaas badan sidaas iyo si lamida insertiga waxaa ku jiro ribbon systemkeeda groupyo aad iyo aad u far badan sida shapes icons waxay ku jiraan halkaas group picture iyo screenshot waxay ku jiraan sidoo kale group okay anaka waxaa isticmaali doonaa inta badan home iyo insert insha Allah videogan maanta qaybta hoose markaa fiiriso waxaa ujeedaa slide number office English luqadoo yahay qaybtan hoose dhinac midig waxaa ka aragnaa zoom slide haddaa rabto pluskaas ayaa taabanaysaa ama badhankaas ayaa jiidaysaa oo sii jiidaysaa haddana waa soo celin kartaa sidaa rabto haddii aad rabto inaad aad iyo aad ugu soo dhawaato dhinaca pluska ayaa wadaysaa minuskana daawado waxaa tegaysaa wuu kaasii fogaanaya si aa u aragto sawirka guud okay pluskana waa taaban kartaa kilig waa ku siin kartaa ama qaybtaas midigta u sareysa midig ayaa taabanaysaa waxaa kuu soo baxaya qaybtan fit to screen waa samayn kartaa hadda waxaa u baahannahay qiyaastii 200 aad waa kuwa ugu dhow oo maaragtay hoosta kaga soo galaya oo screenka ayuu buuxinaya laakiin haddii aadan ku qanacsanayn fit ayaa taabanaysaa okay fit screenka oo dhan ayuu markaas inoo maaragtay buuxinaya qaybtan design ideas wuxuu ku siinayaa naqshado oo maaragtay si degdeg loo soo diyaariyey wuu ku cusub yahay Microsoft PowerPoint waagii hore ma ku jirin waa wax lagu soo kordhiyay sanadihii ugu dambeeyay hadda ma u baahnin waa iska xireynaa dib ayaa ugu soo laaban doonaa insha Allah okay slide-ka ugu horeeyay waa number 1 slide 1 waxaa ugu jeednaa waxaa ku dhex jiro text box laba text box labadaas rectangle waxaa la dhahaa text box qaybtan u horeysaraysa ciwaanka ayaa badanaa lagu qoraa qaybtan hoosena wuxuu ka kooban yahay tusaale ahaan waxaa ku qorayaa si degdeg ah my presentation
okay marka sidaas presentation my presentation qoray ama ciwaanka rabta ay qoraysaa Ali Eze online meesha ma ku baran doona sida presentation loo sameeyo waxa kaliya soo qaadan waxay tahay sida qoraalka loo geliyo marka qoraalka dhex gelisid text box ayaa la afarkiiskaas ama rectangle-kaas qaybtan hoosena text box laba text box ayaa hadda meesha ugu jeednaa haddii aan rabno inaan qaadno text box-kan calaamadda markii falaartaas afarta dhinac u socota noqoto kadib waa qaadi karnaa midig bidix kor meesha rabnaa geey karnaa hadda qaybtiisii hore meeshiisii hore inaan kusoo celi markaan rabo ama dhexda inaan geeyo waa wadaya ilaa calaamad oo laga siiyo in uu dhexda joogo okay hadda dhexda ayuu joogaa kor ayaa wax yar wadaya center ayuu joogaa kor iyo dhinacyadaba centerka ayuu ka jooga laakiin u baahni waxaa rabaa hoos inuu joogo wax yar hoos ka hooseeyo my presentation okay meeshas ay ku daysanaya haddii aan rabo inaan fontiga wax ka bedelo ama farta sida u qoran tahay waxaa haystaa laba fursadood kow waxaa samayn karaa waxaa calaamadeynaya text boxka kadib waxaa imaanaya font group waa qaybtan oo aad ka bedeli karto waxaa rabto waxaa dooranaya font Latin Modern Roman waa farta ugu jeclahay inta badan ma ku imaato aniga soo degsaday oo waxaa ku imaada laakiin kuwo kale oo aad far badan sida Times iyo Calibri laakiin Modern Romans farta rabto ku qoro qaybtan hoose haddii rabto aydan inaad farta ka bedesho waxaa samayn kartaa kan waa kasoo koobiyin kartaa farta waxaa u koobiyanaysaa waxaa tagaysaa text boxka ayaa tagaysaa kadibna format ayaa taabanaysaa kadibna waxaa tagaysaa qaybtan hoose okay cabirkii wax dhan ayuu soo koobiyey laakiin u baahnayn waxaa samaynaynaa back qaybtaas sare waa back okay back inaad dhahma u baahneen hore igu soo celi qaybtan kale ayaa ku shaqo leh markaa hore u soo celinaysid from okay ma u baahne oo waxaa samayn karaa marka cabirkaa raba ayaa meeshan ka dooranaya marka waxaa u baahnahay ugu yaraan 14 inay ahaato okay meeshan ayaa ku shaqo leh qaybtii taagnaanayso bidix midig dhexda akana dhexda okay waxaa raba laakiin kor inuu qaado text box ayaa soo yareynaya kor ayaa keenaya wax yar okay haddii aan rabo farta inaan ku daro waxaa taabanaya adaas ayaa taabanaya okay hadda waxaa sameeyey hal slide waxaana ku qoray ciwaankii iyo qofka soo diyaariyey oo aniga ah haddii aan rabo inaan maaragtay wax ka bedel colorka background iyo designka sida uu muuqdo waxaa tagaya design ayaa tagaya okay meeshan waxaa ka aragnaa design aad u fara badan midkaa rabta ayaa dooranaysaa haddii aadan kuwan ku qanacsanayn dhinaca falaartiis ayaa taabanaysaa kuwo kaloo aad u fara badan ama qaanada hoos u fur kulli meeshan ayay kaaga soo muuqanayaan okay waxaad dooranaynaa tusaale ahaan midkan greenka saas oo ikaaday okay midkan ma ku qanacsanin oo wax qurux badan ma ahan marka waxay noqonaysaa design idea markaad joogto design qaybta midig ayaa tagaysaa design idea qaanadaas ayaa inoo soo furmatay haddii aan rabo waxaa ka dooran karaa midkii i qanciyey hoose ayaa udagi karaa midkii i qanciyey markaa arko waa ku dhufsanaa markaas okay haddii aan u baahdo ma aragtay inaa backgroundka maan jeclaanin iga bedel waxaa tagay qaybtan backgroundka ay ku shaqo leedahay colors background style waxaa iga dhigtaa colorkaas madow xigeenka design idea haddaa ku laabto oo fiirso sidoo ka dhigay amazing waa aad iyo aad wax u qurux badan okay haddii aan rabo marka inaa magacayga hoos usoo dhigo tusaale ahaan waa qabanaysaa hoos ay usoo jeedaysaa oo keliya okay meeshan waxaa ku naqshadaynay slide u horeeyay haddii aan rabno slide kale cusub inaan kusoo darsano waxaa haysanaa laba fursadood waxaa teganaa insert kadibna waxaa teganaa new slide qaanadaas yar ayaa furaynaa kadibna waxaa ka dooranaynaa midkaa rabno okay picture with captions sawir iyo qoraallo isla socdaa rabto kan waa title kan hadda ku bilowno kale okay waxaa furaynaa marka picture with captions okay midkan ayaa inoo soo baxay siduu egyahay haddaa ku qanacsanayn qaybtan bidix ayaa ka arkaysaa siduu noqon doono okay waxaa isku daynaa inaan gelino title haddii aan rabo inaan kusoo daro maaragtay bullets home ayaa tagayaa waxaa taabanaya qaybtan bullets test 1 test 2 Soomaali waa ku qori karay laakiin waa
hadda inaan English ku qora ii fudud. Okay, haddii aan rabo inaan sawir soo geliyo waxaa samayn karaa sawirka ayaa taaban karaa oo keliya, ama waxaa tagaa insert picture ayaa tagaysaa, kadibna waxaa taabanaysaa from file haddii aad rabto inaad computerkaada ka soo saarato picture from file. Okay, kadib pictureka ayaa soo qaadanaysaa midkaa rabtay meesha kugu jira adaa yaqaan. Kabacdi waxaa iska ilaalisaa inaad pictureka geesaha ka jiido. saas waa wax aad iyo aad loo fogaado. waxaa keliya samayn karta qaybtaas sare inaad ka qabato. Okay, marka qaybta sare ka qabato wuu aad uu maaragtay ugu fiican yahay oo ratioga sawirka qaybta maaragtay dhererka iyo dhabalacaba isku mar ayuu maaragtay yaraanaya ama weynaanaya. Okay, sidaas aad ku daysan. haddii aan ku qancin siduu eg yahay waxaa fiirinaya designkana la siiyey naqshadaha ayaa fiirinaya. Okay, kan u sareeyo kana ay anfacay. Okay, haddii marka aan rabo inaan fiiriyo sida u muuqdo ee presentationkani ilaa hadda waxaa tagaya qaybtan hoose. marka click ku siiyo waxaa ii soo muuqanaya pagekan sida uu ekaan lahaa. Okay, haddii aan rabo inaan back u socdo ama kii ka horreeyay aan fiiriyo falaarta ayaa taabanaysaa. page ku horreeyay saan u muuqan doonaa my presentation alias online. pageka ku xig sidaas u egyahay. Okay, ilaa hadda si fiican ay wax noogu socdaan. haddii aan rabo slide kale cusub inaan kusoo daro ma u baahni inaan qaybtan sar insert aad tago ama homeka aad kasoo geliyo qaybtan ma u baahni. waxaa samayn karaa qaybtan ayaa farta midig click ku siinaya kadibna ama new slide. Okay, haddii aan u baahdo slideka inaan iska tirtiro slideka ayaa farta midig ku dhufanaya delete slide iga tuur. Okay, haddii aan rabo maaragtay qaybtan u sareyso presentationka haddii aan rabo inaa duplicate ku sameeyo ama asigoo kale sameeyo farta midig markaa ku dhufto duplicate slide ayay soo baxayso. asigoo kale koobigiis ayaa la siiyey. Okay, markaan waxaa sameyn slide nagu filan. haddii aan rabo midkan damir farowga inaan soo kormarino click ayaa ku siinana kor ayaa u qaadinaa. u fiirso calaamadda shaalada soo gashay waxay sheegaysaa meesha loo wado. haddii aan rabo inaan qaybtiisa u hooseysa ku soo celiyo waa kabanaa click ayaa siinaa qaybta u hooseysa ayaa keenaa. saasna maaragtay waxaa ku sameynay 3 slide. haddii aan rabo inaan animation gelino foqolaaladan test 1 test 2 inay kala hormaraan waxaa taabanay test 1 kadib waxaa taabanay animation waxaa leeyahay appear soo muuqo. waa click markaa siiso ayuu soo muuqanaya. test 2 ayaa taabanaya haddana kadibna blinders fiirna marka sida u muuqan doonaan presentation ahaan. marka hadda click ku siiyo test 1 wuu soo muuqda oo keliya. test 2. Okay, sidaas isla mid waxyaabo badan oo la soo koobi karin ayaa ku samayn kartaa animationka. intaan markaa soo gaarnay waxaa awood u leenahay inaan kaydino presentationkeena. waxaa tegaynaa file save meeshaa rabta ayaa ku kaydinaysaa marka. Okay, asiga ayaa anaga waxaa doornaa the desktop magac ayaa u bixinaysaa my presentation. Okay, kadib haddii aad rabto inaad u beddesho PDF oo dad la wadaagto meeshaas ayaa ka dooranaysaa formatka. Okay, hadda waxaa ku daynaynaa presentation PowerPoint presentation. haddii aad rabto PowerPoint-yadii hore inaad u celiso qaybtaas hoose ayaa formatka ayaa ka dooranaysaa ayadana. All right, kadib save ayaa taabanaya. u fiirso qaybtan sare magaca ku save garay ayuu isku bedelay. markaa keedii waxaa isku dayaa markaan in aad tijaabiyo slide-yadeedii oo dhan in ay yihiin kuwa maaragtay qurux badan oo maaragtay la akhrin karo. inay qurux badan yihiin ama inuu presentation fiican yahay waxaa ku ogaan kartaa qofka u dambeeya fasalka ama qolka presentation lagu sameynayo haddii uu akhrin karo qoraalkaada farta waaweynkeeda presentationkaas waxaa la dhihi karaa waa mid la fahmi karo oo aad u fiican. Okay, hadda aad tijaabino midkan sida u muuqan doono. Okay, my presentation alias online. falaarta markaa midig u socoto slide ku xiga ayuu geenayaa. laba mar ayaa sameynay. kadib waxaa soo gala damir farowgii title test 1 test 2 escape ayaa taabanaya marka si aa ugu baxo. Okay, videogeena maanta aan ku baranay aasaaska hore ee Microsoft PowerPoint intaas ayaa kusoo koobaynaa insha allahu. haddii aad jeclaan lahayd cashiradan oo dhammaystiran fadlan soo booqo websitekeena oo ah www.kabaro.com. Okay, waxaana jeclaan lahayn in asxaabta la wadaagto oo kanaalkan subscribe ku noqoto si aa u hesho videoyaal kale oo tayo leh. aadna u mahadsantihiin. waa anigu cali maxamed ismaaciil baashi oo idin leh waa inoo mar kale.